yarkii cabdi tirmiina waa soo baxay dii qolo madax bannaan warkii markaan dhamaysaneen albaabkiis ka soo baxay ayaa waxaa sanankii booliska oo kaga duulinaya gaadhi iyo taliya araaryuda ayaa albaabkii ka hor yimid ma xasuusan kara beeriyadu ku hadlayay maxaad ka soo doontay ayuu ku yidhi xarunta mahooyadaa baa leh saa ku yidhi meena qarankaa leh adoo ma qarankaa tahay buuri cadowga somaliland baa tahay buuri weydiinayaa hayadaha kale sharciga gacanta ku hayaan weydiinayaa ma yihiin inay riixi karaan hadallada yara daciifka ah ay ku qaraabtaan kuwa ummadayna u shaqeeya ka baaqsaday wuxuu adeegsaday maadaa somaliland wax kasta oo uu qof ku hanjabi karo maad moodayn janankii booliska ee xeerkii iyo kala dambeyntii nabadgelyada ku hayay marag iyo markhaati ba ila 30 nin baa taagnaa saasuu gacanta u warfinayay kelmadda aan weydiinayo in dadka ogeysiinayo waxa weeye wuxuu yidhi iska tag annagaa shaar kulee kuu gelin doonne annagaa naqaana halkaan ku geyn doono waxaan weydiinayaa taliyaha halkeedi geynaysaa maad dilaysaa maad qafaalanaysaa halkeedi geynaysaa waan ku weydiinayaa shacabka somaliland dadkii soo doortay waxaan u sheegayaa haddii lay waayo caaw jananka booliska loo raacay jabaadiisii annagaa garanayna halkaan ku geynayna lahaa kelmaddii ugu dambaysay ku gabagabeeyey wuxuu yidhi xerow ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo geli maysid dabagale waxaan weydiinayaa xeryaha ciidanku mayna xeryihii ciidanka booliska ahayn kuwaan shalay lahaa miisaaniyadda loo kordhiyay mayna ciidanka boolisku in miisaaniyaddooda lagu dagaalamay mayna waxaanu tagnay xarunta CID-da waanu booqannay markii aanu hawshaydii soo dhammaysanay ayaa waxaa naga hor yimi taliyaha bilayska dabagale iyo askar la socota dabeeto si halhaleela uunbuu markiiba maxamed xabiib daf u yidhi dabeet isagoo tahdiid iyo hanjabaad isugu daraya waxaa hadalladiisii aan ka xasuustaa inuu ku lahaa shaar kuleeg baan kuu xidhi waad kibirsan tahay somalilandba ma tihid cadowga somaliland baa tahy dhowr jeer baan isku dayay inaan la hadlo oon ku idhaahdo taliya dee xayndaabkii oy ka gudubsan tahay mas-uuliyadna sidani maaha dabeeto dhowr jeer dheg noomuu dhigin markii dambe waxaan isku dayay inaan xakameeyo maxamed xabiib oo ila socday oon ku dhaha bal adigu haddaba hadline u kaadi laakiin dee intaan arkayey mas-uuliyad dee taliye ciidan sidii u dhaqmi lahaay oo kale ma ahayn anugu muddo 20 sano in ku dhowbaan dee garsoor kusoo jiray intaasoo taliye bilays baa dee oo kala duwan baan la soo shaqaynay raggii badankoodii way dhinteen allah u naxariisto weligay wax saa u dhaqmaya dee lama kulmin maxaa xarunta CID-da ku soo geliyay buu yidhi ma soo geli kartid xarunta CID-du waxa weeye waa xarun dee dadweynaha u shaqaysa oo qaranku leeyahay meel qof loo diidi karaa qofna laga xayiri karo qofna loo ogolaan karo maaha waa meel ummaddu wada leedahay taliyaha dabagale ka horna waanu geli jirnay dabadiina waanu gelaynaa intuu joogna waa la gelaya meeshan waa meel qaranku wada leeyahay ummaddu wada leedahay laakiin tahdiid dee qarul caadiya oo aan mas-uuliyadi ku dheehnayn ayaa dee markii aan goobjoogga sidaan ka ahaa oo dee taliyahaasi ficiladiisii ficillo dee lagu tilmaami karo ficillo mas-uul may ahayn anigu goobjoog waxyaabihii aan ka ahaa bay ahayd aad baanan uga xumaaday wallahi sida runtiiya waayo saa mas-uuliyad iyo hoggaanka ciidanka bilaysku markuu saa u dhaqmo ee xildhibaanadii xasaanadda lahaa dee saa loogu dhex tahdiido su-aalahan isweydiinaya waxaa ka mid ah dadkii shacabka ahaa talow waase dee waxaan is leeyahay un ilaahay u naxariisto wallaahi hanjabaadda uu taliyuhu u geystay sharci ahaan mas-uuliyad darro weynna way ka dhalanaysaa dee waxaa kaloo ka dhalan kara fal kasta oo ninkaa ku dhaca cidda loo raaci karaa waxay noqonaysaa taliyaha waayo wuxuu ku yidhi shaar kuleeg baan kuu xidhi doona anigu dee shaarkaa isaga inay tahay la weydiiyo muxuu uga jeedaa dee shaarka leeg uu leeyahay xildhibaanka xasaanadda le waan kuu xidhaya dee isagay tahay inuu faahfaahiyo bulshada u faahfaahiyo la weydiiyadii